hoteelka Rays ee magaalada Boorama ayaa waxa maanta ka dhacday xafladda qalinjabinta dubcadii koobaad ee jaamacadda Badar ee ku taala magaalada Boorama. Xafladani ayaa waxay ahayd mid kulmisay guud ahaan baahal doorka iyo bulshada ku dhaqan gobolkani Awdal. Maamulka gobolka kalin degmada Boorama xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa ka soo qayb galay xafladani qalinjabinta ah ee jaamacadda Badar faraceeda magaalada Boorama. 163 arday ayaa ka qalinjabisay dhammaan qaybaha kala duwan ama kuliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Badar ee magaalada Boorama. xafladani sidoo kale waxa goob joog ahaa ardaydii iyo ka qalinjabinaysay jaamacadani kuwaas oo ka koobanaa hablo iyo inamo. haddaba ugu horreyntiiba waxa munaasabadani furay isla mar ahaantaasna ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Badar oo isagoo ka yimid magaalada Hargeysa Dr. Mubaarak Aar waxaana uu ka warramay guud ahaan jaamacadda Badar iyo tacliinta ay bixiso isagoo oo sheegay markii hawshan runtii laga bilaabay geeygan Boorama maantana runtii madasha aadka u qiimaha badan leh ardayda aadka u qiimaha badan leh maanta ay ka qalin jirinayaan jaamacadda Badar. jaamacadda Badar waxa loo aasaasay waa 3 hadaf qasdiga loo sameeyay waa 3 hadaf. kow jaamacadda Badar inay soo saarto arday la tartama ardayda kale jaamacadka caalamka oo xagga aqoonta ka dhisan. hadafka labaadna waxa weeyaan jaamacadda Badar ardayda soo saarta inay noqdaan arday dhinaca akhlaaqda ka dhisan. hadafka saddexaadna waxa weeyaan jaamacadda Badar inay soo saarto arday runtii wax la qabsan kara wax u tari kara bulshada Somaliland. runaantii jaamacaddu iyada 3 hadaf ka duulaysa ayaa waxay runtii bilowday inay halgan la gasho tayinta jaamacadda. jaamacadda Badar waxa ay bilowday kow ardayga qaadanaysa inuu noqdo arday la hubiyay inuu arday ku haboon yahay inuu jaamacadda soo galo. dhanka kale xafladani intii ay socotay ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar faraceeda magaalada Boorama Professor Suleymaan Muuse isagoo ka warramay ardayda maanta ka qalinjabinaysa jaamacadda Badar isagoo hambalyo u diray. ardayda maanta qalinjabinaysa waxay iskugu jiraan heerka koobaad ee jaamacadda ee digriga loo yaqaan ama bachelorka loo yaqaan iyo heerka diblomooyinka iskugu jiraan. tiradooda guud sheekh ayaa inoo sheegay waa 163 arday waxa maanta inoo qalinjabinaysa bifadlillah. wiilal iyo gabdhaba way iskugu jiraan. ardayda bachelorku waa dhowr iyo 37 arday ayaa bachelorka inoogu qalinjabinaysa waana 2 program waxa weeye ardayda shariicada iyo diraasaadka islaamiga bartay. gruubna waxa weeye gruub bartay project management amba maareynta mashaariicda waxa loo yaqaano kan qalinjabinaya. iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha boorka jaamacadda Badar iyo xubno ka tirsan boorkaasi kuwaas oo ka dhawaajiyay kulli jaamacadani ma rabo inaan hadal dheer aan idhaahdo waxa keentay baahi markii hore taasiiskeeda daan wax yar ka taabto. baahidaasi oo ahayd ardayda ka baxda macadu sayla lidaraasat alislaamiya wal luqa alarabiya waxay u baahdeen aqoon heer jaamacadeed ah. macaahidda markaa ka jirta gobolka ama ka baxsan in ay markaa ku soo hirtaan oo ay ka bartaan sharciga. aasaaska ugu weyn ee markaa loo aasaasay taasay ahayd oo markaa muhiimadda keentay taasiiskeeda. waa macallimiin iyo culimadii magaalada weeye oo doonay aqoontoodii inay kororsadaan. waxa runtii ay xasuusin mudan waxa ku jira ardaydaas ardaygii ugu horeeyay ee macadka Zaylac aan qornay gacantayda aan ku qoray ugu horeeyay awal talib aan sajilnay oo qornay jaamaca ee macadka Zaylac ayaa ardaydan kamid ah waa Cabdirasaaq Muuse. waxa farxada in maantana jaamacadda Badar oo macadku aw taasiiskeeda aw lahaa inuu haddana aw ka qalinjabinayo. xafladani qalinjabinta ee jaamacadda Badar ee maanta dhacday ayaa waxay ahayd mid si meeqaam sare ah loo soo agaasimay ayaa iyaguna wax hadallada iska daba qaatay maamulka heer gobol heer degmo xubnaha golaha wasiirada kuwaas oo dhammaantood bahambaliyeeyay ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Badar. aan leeyahay maartay haniyan lakum waan idin hambalyeynaa
waan idin hanaynaynaa maanta cilmiga iyo aqoonta aad barateen waan idinku hambaliyaynaa maamul ahaan iyo gobol ahaan waxaan idin leenahay hambaliyo aad baan ugu mahad celinaynaa culimmada iyo bahda jaamacadda Bederba waana mid lagu faani karo waana record degmada u xidheen oo degmooyinka kale ka jirin barakallahu waxaan idin leenahay barakallahu fiikum allah idin barakeeyo hani aan lakum ilaahi waan idin hanaynay halka idinku cilmiga maxayday ka sii wada hasantukum bil hayy al qayyum alladhi la tadii'u wadaa'i'u ilaahi baan amaana idin ka dhignay oo amaana idin ka dhignay jaamacadda Camuudeed saddexdii boorka ahaa ee asaasay baan ka mid ahaa oo maanta ka nool xaaji daahir iyo jaamac maxuudi allah u naxariistay dad waxaan boqol gaadhin baan maalinta taladii ku galay maantana halkay maraysa jaamacadii waniga arkaya jaamacadda maxay ahayd Beder ee xaggeena saahay dhashay Saylac saddex nin baan ku furay maalintii kolkuu Saylac oo sheekh ay noo yeelay Sheekh Xasan Khayraalka maantana dee Beder bay sii dhashay kolka Boorama oo isaga keenay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidii horeba looga dhawaajiyayna jaamacaddan waxa hooyo u ah macad Saylac oo haddaanu macad Saylac imanin Beder may timaadeen marka waxaan leeyahay kollayba anigu in badan baan hadli jiro hadalka ku dheeraan maayo saacadana qaadan maayo kaliya waxaan leeyahay mabruuq calaykum hooyo dhammaantiin kullay ka gobol ahaan oo gobolkii aqoonta anoo ku hadlaya magacii gudoomiyaha anoo ku hadlaya magacii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo gudoonkii gobolka ahba dhammaantiin waan wada hambalyeynaya waxaan ugu celinayaa taas waxa weeye shaqo la'aan baa jirta bal shaqo la'aan ma jirto waxa jirta karti la'aan iyo aqoon la'aan tayo la'aan aan idhaahdo aqoontii way jirtaa laakiin tayo la'aan baa jirta tayada ha la xoojiyo gabagabadii waxaa xafladan shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dhammaanba ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Beder faraceeda magaalada Boorama ahaydna dufcadda koowaad ee ka qalin jabisay jaamacaddani Beder waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Star